runtii waa mashruuc weyn oo bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd oo aan rajaynayno sida loo sheegay inuu haqabtiri doono baahida caafimaad ee dalkeena ka jirta oo la heerarka maanta caalamku u tiigsanayo aqoon ahaan iyo xirfad ahaan waxaan u rajaynayaa mashruucan maanta halka laga dhagax dhigay inuu Ilaahay barakeeyo ka dhigo mid sidii loogu talagalay u hirgala ummaduna ay intifaacsato meel kasta ay joogto runtii waad ogtihiin baahiyaha dalka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay qabaan waa baahiyo aad u fara badan muddo dheerna ay aad u dhibtoodeen xilliyo kala duwan weliba deegaanada tan 30 sano oo dawladda la lahaana ma aysan ka soo gaarin mashaariic dadku waxtar u leh muddadii dambe oo dalku xaaladaha adag ku jirana hadda bulshada Soomaaliyeed baan la qabnay duruufahaas kala duwan ee jiray dadaalka ay dadka Soomaaliyeed ay geliyeen siday noloshooda u soo kabi lahaayeen runtii taariikhdu way xusay doontaa qof walba kaalinta uu ku leeyahay iyo waxa uu ka qayb qaatay marxaladaha ganacsiga uu soo maray waxaan ku faraxsanahay inuu maanta u gudbay marxaladihii maalgashiga oo laga gudbo ganacsiyadihii daruuriga ahaa oo loo gudbo sidii hay'adaha waaweyn ee dhaqaalaha kobciya adeegyada waaweynna bixiya in maanta la gaaray iyadoo kuwa bangiyada iyo isgaarsiinta iyo mashaariicahaas ay horay ula jaan qaadeen bulshada in warshadaha iyo caafimaadka iyo tacliinta heerka sare ah iyo waxyaabaha kale oo bulshada u baahan tahay si nolosha adduunka aan ula mid noqonno bulshadeennuna ay u hesho xasilooni iyo deganaan cid kasta oo jecel inay ka qayb qaadato dawladda Puntland waxay cadeynaysaa inay gacmo furan ku soo dhaweynayso inay tasiilaadkii u baahan tahay ay fulin siin doonto inay dhiirigelin siin doonto haddii Ilaahayno mashruucan iyo mashruucyada kale kamid ah mas'uuliyiinta kale ee iyagana nala jooga ee ka yimid wadanka Carabaha Sacuudiga iyagana waxaan gacmo furan ku soo dhaweynaynaa inay iyaguna ka qayb noqdaan maalgashiga ee horumarka laga sameeyo dabcan dalkeenu marxalada amni ayuu ku jira gaar ahaan dawladda Puntland waxay ayaantan ku howlan tahay iyadoo boqolkiiba 95 wax ka badan dalkan amni yahay haddana buuraha golis argagixisada ku dhuumanaysa ayay waxay u qalab qaadatay dawlad iyo ciidan iyo shacabba in la soo afmeero si albaabada aan ugu furanno kambaniyada waaweyn ee dalkan maal gashan doona arrintaas waxa la rabaa dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan inay u guntadaan oo gacan ka geystaan waxaan sidoo kale halka uga dirayaa fariin dadka halka ku jira ee la marin habaabiyay sida khaldan diinta u gashay fursad bay haystaan ay bulshadooda uga mid noqdaan oo dalkooda dib ugu soo noqdaan wixii ajnabi oo wanaag dalkan ku joogaya inaan soo dhaweynaa rabnaa wixii xumaan wadana hadduusan xumaantiisa ama la tago ama uu hadee wixii uu munaasab u leeyahay uu heli doono hadii Ilaahay ciidamada ammaanku waxay weli gacan siinayaan cid walba oo jecel inay dalkooda iyo dadkooda dib ugu soo noqdaan inta markaan ka tago waxaad ogtiin xaalad adag buu dalku ku jira dagaal fara badan baa ka socda meelo kala duwan oo geeyiga Soomaaliyeed iyo geeska Afrika ah ee dadka Soomaaliyeed degaan waxaan rabaa halka baaq inaan uga diro in dadka Soomaaliyeed nabad ku wada noolaadaan horumarka ka shaqeeyaan danahooda ay qabsadaan waxaan runtii dawladda Puntland ka go'an inay difaaceeda iyo nabadgelyadeeda ka shaqeyso horumarkan ay ka shaqeyso oo aanan la oran dagaal baa lagu jiraa ama difaac baa lagu jiraa labadaba inay si hareer ah u socdaan horumarkuna inuu socdo Soomaali inteeda kalena sidaas oo kale aan ku boorinaynaa waxaan rajaynayaa khilaafaadka siyaasiga ah iyo khilaafaadka qabiilka ka dhaxeeya inuu sababin inay wiilal Soomaaliyeed ku dhintaan wada hadal baa lagu xallin karaa wixii dadka ka dhaxeeya in la joojiyo dirirta iyo dagaalada baayadan damba soo noqdo meel kasta ka dhacaan kuwa ka dhacaya kilka shanaad iyo kuwa ka dhacaya gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Hirshabeelle kuwa ka dhacaya Mudug oo runtii nasiib darro ah oo horay aan uga gaarnay heshiis waxaan halka rabaa inaan baaq uga diro bulshada gobolka Mudug Galmudug iyo Puntland in ay fuliyaan heshiiskii lagu la gaaray labada maamul
iyo odayaasha u xilsaarnaa waxaan halka uga baaqayaa ciddii xadgudubka samaysay xabad joojinta in ganaaxi iyo tallaabadii loo baahna laga qaado labada maamulna isku meel uga soo wada jeestaan dhinacay rabaan ha ka tirsanaadaan ciddii ku xadgudbaysa nabadda iyo xasiloonida meelaha kalena waxaan rajaynaynaa in dadka caqliga leh iyo dawladuhu ama kuwa isteed ha noqdaan ama dawladda dhexe ay qayb ka qaadato waxaan insha allah baaqayga u dambeeya ku soo celinayaa dawladda federaalku inay waayeel noqoto kala aragtiwaan siyaasadeed ay xabad ku xallin dadka Soomaaliyeed gogol u fidiso dib la isugu soo jiido ummadan horumarkeeda laga shaqeeyo deganaanshaheeda laga shaqeeyo dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin tacliin waxay u baahan yihiin nolol degan waxay u baahan yihiin horumar uma baahna xabad iyo dirir iyo dagaal hantida ku baxda qoryaha iyo xabadaha la iibsanayo runtii waxay noqotay saylad dalkeenna loo soo waarido hubka si iyagu isugu gumaadaan arrintaas waxaan ugu dirayaa baaq waxgaradka meel kasta ay joogaan siyaasiyiinta odayaasha iyo cid walba mas'uul ah inay marxaladda dib u fiiriso siyaasaddu wadadeeda la mariyo nolosha kalena wadadeeda la mariyo waxaan jeclahay inaan hadalkay ku soo gabagabeeyo inaan u hambaliyo Dr. Maxamed iyo tiimkiisa barnaamijkan sida habsamida leh muddada dheer uga soo shaqeynayay waqti badan baa galay waxaan uga mahad celinayaa inuu gartay waajibkii ummaddiisa iyo dadkiisa ku lahaa inuu qayb ka siiyo isagoo oo nolol degan horumar iyo shaqo ku haysta dalal degan oo runtii horumarsan inuu qayb waqtigiisa ka mida siiyo dalkiisa mashaariicda intaan oo kale aana uu u soo horseedo inta kale ee qurba joogta ah iyo hantiilayaasha reer Puntland iyo Soomaaliyeed waxaan iyagana ugu baaqayaa inay dalkooda maal gashtaan oo meeshii markaa nabdoon ay maal geliyaan cid kasta ayay halka u furan tahay ama ajnabi ha ahaato ama Soomaali ha ahaato geyigay rabtaa ha ka timaado ciddii rabtaa wanaag gacmo furan baan ku soo dhaweynaa sidii horeba lagu soo dhaweeyay ciddii damacdaha inay dalkan nabadgelyadiisa khalkhal gelisana insha Allah gacan adag baa lagu qaban doonaa sharciga kala dambeynta ayaa insha Allah u ah astaan Puntland idinkana guuleysta dadka reer Puntlandna waxaan rajaynayaa inay danahooda u soo jeestaan dalkooda difaacdaan horumarkiisana si wadajir uga wada shaqeeyaan mujtamac iyo dawladda aad baad u mahadsantihiin waxaan insha Allah baaqayga u dambeeya ku soo celinayaa dawladda federaalku inay waayeel noqoto kala aragtiwaan siyaasadeed ay xabad ku xallin dadka Soomaaliyeed gogol u fidiso dib la isugu soo jiido ummadan horumarkeeda laga shaqeeyo deganaanshaheeda laga shaqeeyo dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin tacliin waxay u baahan yihiin nolol degan waxay u baahan yihiin horumar uma baahna xabad iyo dirir iyo dagaal hantida ku baxda qoryaha iyo xabadaha la iibsanayo runtii waxay noqotay saylad dalkeenna loo soo waarido hubka si iyagu isugu gumaadaan arrintaas waxaan ugu dirayaa baaq waxgaradka meel kasta ay joogaan siyaasiyiinta odayaasha iyo cid walba mas'uul ah inay marxaladda dib u fiiriso siyaasaddu wadadeeda la mariyo nolosha kalena wadadeeda la mariyo raba halka baaq inaan uga diro in dadka Soomaaliyeed nabad ku wada noolaadaan horumarka ka shaqeeyaan danahooda ay qabsadaan waxaan runtii dawladda Puntland ka go'an inay difaaceeda iyo nabadgelyadeeda ka shaqeyso horumarkan ay ka shaqeyso oo aanan la oran dagaal baa lagu jiraa ama difaac baa lagu jiraa labadaba inay si hareer ah u socdaan horumarkuna inuu socdo Soomaali inteeda kalena sidaas oo kale aan ku boorinaynaa waxaan rajaynayaa khilaafaadka siyaasiga ah iyo khilaafaadka qabiilka ka dhaxeeya inuu sababin inay wiilal Soomaaliyeed ku dhintaan wada hadal baa lagu xallin karaa wixii dadka ka dhaxeeya in la joojiyo dirirta iyo dagaalada baayadan dambe soo noqdo meel kasta ha ka dhacaan kuwa ka dhacaya kilka shanaad iyo kuwa ka dhacaya gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Hirshabeelle kuwa ka dhacaya Mudug oo runtii nasiib darro ah oo horay aan uga gaarnay heshiis waxaan halka rabaa inaan baaq uga diro bulshada gobolka Mudug Galmudug iyo Puntland in ay fuliyaan heshiiskii la gaaray labada maamul iyo odayaasha u xilsaarnaa waxaan halka uga baaqayaa ciddii xadgudubka samaysay xabad joojinta in ganaaxi iyo tallaabadii loo baahna laga qaado labada maamulna isku meel uga soo wada jeestaan dhinacay rabaan ha ka tirsanaadaan ciddii ku xadgudbaysa nabadda iyo xasiloonida
meelaha kalena waxaan rajaynaynaa in dadka caqliga leh iyo dawladuhu ama kuwa isteed ha noqdaan ama dawladda dhexe ay qayb ka qaadato